الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين وعشركي أفر إيا كنتونات إيا كتاب كيني حكم وفوائد من روائع الإمام ابن القيم رحمه الله. سوء الخاتمة. هل كان شيخ وحكوشيغي حكمة عوان لوغا دغاي سوء الخاتمة عياذا بالله. إلهي بان كان مغان قال خاتمة حن. إلهي بان كان مغان قال وحوري ابن القيم إذا نظرت إلى حال كثير من المحتضرين حداد فيرسو إن بدن أودتك أي نفتك سو حاضرتي أحداد أركتو وجدتهم وحد هليسا يحال بينهم وبين حسن الخاتمة وحد أركيسا iyaga oo la kala celiyey oo iyaga iyo xusnul khaatimadi dhaxdooda la galay dhaxdoodii baa la galay taasaad arkaysaa bimaanaa u suuroobi mayso waxbaa kala dhexgeliyo sababtuna waa maxay buu yihi waa cuquubatan lahum calaa acmaalihim asayi'a taasina waa cuquubo iyo inkaar ku dhacday oo acmaashoodii xumxumayd ee adduunka ay ku samaynayeen darteed ayaa loo kala celinayaa iyaga iyo xusnul khaatimo inay helaan. kitaabkiisii addaawa dawaa ayuu ku sheegay sheekhu. waa kitaabkii aan kasoo bilownay kutubtan ibnuqayim aan aqrinayno bishii january bay ahayd baan filayaa ee sanadkan gebagabada bishiisii u dambeysay aan ku jirno 12 bilood 7 kitaab oo kutubta sheekhana waan soo aqrinay biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. arrintaa walaalayaal suu'ul khaatima ciyaadan billah haddaan waxoogaa ku istaagno khaatimada xun waa cuquubaadka ilaahay dadka uu ku imtixaamo oo cuquubada iyo inkaarta ku dhacaysa ah inuu qofku xilliga ugu baahi badan yahay ay naftiisu ay khayaamayso. wataamatu lkubraa baa la yidhaahdaa. isaga oo shiddo ku jira ayaa waxaan yeelaynin qalbigiisu ateeci maayo, carabkiisuna yeeli maayo, xubnihiisuna yeeli maayaan. waana xilliga ugu baahi badan yahay. waa xilliga naftu ay kusoo ixtidaarayso oo intiqaal ila allaahi tabaaraka wa tacaala uu sii guurayo. waxay sheegay ibnulqayim raximahullah kitaabkiisa addaawa dawaa uu kusoo guuriyey axwaal dad badan oo dadkaa lagu soo xaadiraa qisadoodiibuu soo ururiyey. wuxuu yihi qaar ka mida markii la yidhahdo qul laa ilaaha ila allaahu dheh war naftaa ka baxaysee towxiidka loo qabto yaa wuxuu leeyahay haa laa astatiicu an aquulaha haa intuu yidhahdo afka kala qaado yaa wuxuu leeyahay ma awoodo inaan idhaahdo. mid kale waxaa lagu leeyahay qul laa ilaaha ila allaahu dheh marka kaasina wuxuu gelayaa fajacala yahdi bilghanaa inuu heeso oo taatana uu yidhaha isaguna hees uu qaadayabaa ilaahay ku imtixaamaya. mid kale waxaa lagu leeyahay isagana qul laa ilaaha ila allaahu dheh markaasaa wuxuu leeyahy wamaa yanfacunii maa taquulu oo maxay iga anfacayaa waxa aad sheegayso walam adac macsiyatan ila irtakabtuha weligayba macsiyo ma daynin macsiyo kastana waan sameeyey buu leeyahay. uma qadaa naftii baa ka baxaysa walam yaqulha. mid kale waxaa lagu leeyahay qul laa ilaaha ila allaahu dheh markaasaa wuxuu leeyahy wamaa yugnii canii muxuu ii tarayaa wamaa acrifu annii sallaytu buu yihi mana garan kara inaan ilaahay u tukaday isagana naftaa ka baxayso muu dhihin. mid kale lagu yidhi qul laa ilaaha ila allaahu dheh markaasaa wuxuu leeyahay mar kasta oon doonay inaan dhaho kulamaa aradtu an aquulaha fa lisaanii yumsaku canha mar alla markaan doono inaan dhaho carabkaygaa laga qabanayaa oo waa layga joojinayaa. mid kalena waxaa lagu odhanayaa qul laa ilaaha ila allaahu dheh markaasuu leeyahy haadihi alqidcatu rakhiisa wa haada mushtaran jayid buu leeyahay. tani waa mid rakhiisa, tani waa qaali, tani waa rakhiis. waa mid suuqu taagnaan jiray. bimacnaa dadka aan soo sheegnay nin walba camalkii uu ku dhex jiray ayaa laga yaabaa inaa maaragtay lagu soo bixiyo uu xilliga ugu dambeysa uu noqdo waxa uu ku dhawaaqay. ibnulqayim oo hadalkaa hadal cajab badan ku gebagabaynayaa wuxuu yidhi haddii addoonku u fiirsa hadalkaa haddii addoonku uu ahaa buuhi fii xaali xuduuri dihnihi markii uu maskaxdiisu joogtay waa hadda marka aan fiicannahay oo ogaada oo qof walba aad caafimaad qabto xilliga uu dihnigiisa iyo quwadiisu ay joogtay haddii shaydaan uu ka qaalib noqday uu ka sayid caleeyey maa la odhan jiray haddii shaydaanba hadda uu ku wato adoo caafimaad qabo oo quwadaadii ay joogto uu shaydaan kuu adeegsaday wax ilaahay caasinimadiisa ah
oo qalbigaagiina u halmaansiiye dikriga alleh, oo carabkaagiina ka joojiye dikriga alleh, oo xubnahaagiina ka joojiye taacadii rabbi, fa kayfa dannu bihi cinda suquuti quwah, maxaad u malayn marka tabartaadu ay dhammaato, marka qalbigaagu uu ku mashquulsan yahay xanuunka ku hayee naftu ay kaa socoto, xilligaasoo shaydaan xilligu ugu xoog badnaa uu yahay, liyanaala minhu fursatahu, si uu fursadda ugu fiican uu kaga qaato, oo maxay tahay inuu karkaarka ku weydaariyo. fa aqwaa maa yakuunu calayhi shaytaanu dalika alwaqti, xilliga shaydaanku ugu xoog badan yahay waa marka adiga nafta kaa bixi. wa adcafu maa yakuunu huwa fi tilka alxaal, qofku marka u tabar daran yahayna waa xilliga naftu ka baxayso. fahal turaa, yaad u malaynaysaa marka inuu ka magangelayo, isaguna dadaalkaasu wada hal mar inuu kelimada towxiidku garab mariyuu doonayaa, adigana tabartaadii baaba dhammaatay. fa hunaaka yuthabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya wafi alaakhira wayudillu allahu alظaalimiina wayafcalu allahu maa yashaa. ilaahay subxaanahu watacaala dadka ahlu iimaanka rabbi baa markaas sugaya. ilaahay hayna sugo, xusnu lkhaatimana ilaahay subxaanahu watacaala haynagu arsaaqo. wajazaakum allahu khayr wbaaraka allahu fiikum.